السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa My TV maanta waxaan idinkaga soo hadlayaa xarunta Galol Tracking Company xaruntiisa Omaha Nebraska waa anigoo ah Maxamed Ismaan Maamo waxaan soo booqanay gudoomiyaha Galol Tracking Company waxaa sharaf weyn inoo ah haddaanu nahay bahda My TV soo dhaweynta iyo aqbalaada uu naga aqbalay gudoomiyaha ama milkiilaha Galol Tracking Company Daahir Macalin Cali oo loo yaqaan Daahir Ganey. Daahir السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليبا هلو. waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta aad noo fidisay haddaanu nahay bahda My TV Omaha Nebraska. ما شاء الله Daahir waxaan jeclaan lahaa maadaama su'aalaheena ay aad u fara badan yihiin oo nin businessman aad tahay weliba businesska Galol Tracking Company haddii aan ku hormaro goormeen la aasaasay Galol Tracking Company. إدي لما حصلت لي بان سؤال هذه وينتيدي ما يبغى هدي أنا كي كجوا كم بينهم ولا لا أساسها لما ديكم يتمون يتطاولي اللي سنة يا ما لرايس عادي شغال بلاوي يا بقول كان نبراسك شغال بلاوي إلا ولا سلاح تبتي وما لرايس شغال شغال بدي المرحلة ذا أو ما لرايس ما يحمر الشغل بدون لكن ما شاء الله تلاقي كده شغال. su-aasha xigta aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay kambanigiinaan meeqa taraag ayaa u shaqeyso. liban su'aal aad anfayla waaye oo muhiim ah abuurta oo waqtigan hadda la roogo kambaniga aan dareerahay tamasi shaqeeyahay taladiyo waliba waa tuman ilaa ma baabur waaye tuman ilaa madaas baabur haddii oo aad weydiidii kambanigana meelay mayna oo meel raayis owner operator dadka lan kasoo meelayin haddii aad yartay kambaniga baaburtiis iyada ay jarta ilaa lama baabura kambaniga leeyin marka tareelaalka la jiidowna kambaniga isku leh marka tiradiyo intaas waa shaqaalada oo shaqeeyasa kambaniga tiradiyo 24 qof waaye 24taas qof qayba ma ka shaqeeyaan meel raayis xafiiska shaqeeyaan qaybna waliba baaburta raraan qaybna baaburta wadaayaan ساسا إن شاء الله هاي عندك شغال ده. sidaan ognahay business waa dib badan yahay gaar ahaan wadankan aan joogno weliba dadkiinaan biraha ka ganacsada sida baabuurta oo kale maxaa caqabad ah oo ka hor imaaday haddii ay jiraan wax caqabad ah sideen ugu gudubtay marka caqabado jiro eedii eedaan badanyiin especially marka lagu hadalo baabuurta muhiimka oo taraagyada ah إذا بدنين لكن أنا ما بصوبني training عن صوبني درايفرين تأكله أو online يا كترين جريانا فيديو ما إلى رأي سبب كاستبه هالمرلندرة أو دباتوين كودوين كودياو اللي شرحوا سد الشغلة أو ما إلى رأي حفيزة الردنا سكوفضوا ده ولا أنك بدن ودوين كوا أو ما إلى رأي سد الجديد كبوليس كروجام أو كلا دبات بدن كل ما هو هدي على قلة الصوبي ده واي ستيشن هذا وكله ولا كسر مركز ترين جريني حتى الحمد لله ما إلا رأيس جيكي كوش أقدر نحبله ونير بدن هرمرني لكن حتى ما يبغولول بهم فضل هذا سدا سوكر الليبان ولي جريها on site training أو بابورت سي أو مانويل إلا براو دراولك لطصاو سدا بريتريب inspection ولا لا راو كلام معلوم والبنين تيوس شغال بلا مكوهر لصوبيو سد اللغة باورت لنجاريو سد بابور كان ميل رئيس وحيابها وقلتن لنفيريا ورنم كترين جريانا مدو أو ميل رئيس أو كفيلم يترين جريانا دراول كأسو عن هوش بلا أسو ريدو بهوشيس بلا وميا أسو ديارسن بهوشيس بلا exactly هذا فهمتي هذه هذا ما صنده وقت هاي داو ديال ولي وحنا نوصله سؤاله عن ما أنت كسب بخني Galol Tracking Company gudoomiyaheeda Daahir Ganey waliba waxaan maraynaa gabagabadii su'aalihii aan maanta ku soo diyaarsanay in uu noogu jawaabo saaxiibkeena ama gudoomiyaha Galol Tracking Company Daahir Macalin Xasan oo loo yaqaan Daahir Ganey waa tahay Daahir su'aashi gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa su'aasha xigtaan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama hadda gabagabadii sanadka lagu jiro waxaan filayaa kambaniyada qaarkood iyo talaagleyda aad iyo aad inay busy u yihiin maxaa fursado ah ayaa u banaan ninka owner operator-ka ah ama shaqaalaha ah oo raba kambanigiina inuu kusoo biiro maxaad diyaariseen maxaa fursado u haysaan
horta liibaan shaqaalo oo ma baahana shaqaalo badan ma baahana run ahaantii si shal dorin laakiin shaqaalada hadii geekuna baahana ma baahan driverin aan baahana oo meel raayis walaalan ka soo team driver ama salaam qof oo hal baabuur la wadaw taas oo una kala fadahayna boostadii leemanki oo boostadii iyo haysana leeman badan iyo haysana oo ilaa iyo meel raayis shanjaha oo kala shal bahayaan marka wali baan baahana ilaa hadii oo una helna meel raayis tumo qof oo kala oo darawaliin baahana oo Britain sun saas oo kala hoganin kooy sun hadhawaayaan baahana meel raayis hadii su'aal weydiido qof kasta meel raayis aan fronta البابدا مال رأسا وكمبينين كان وشقهم كباهم ولا كان ونهاية جري كون نهاية جري مو بهانتين dispatcher كوكالة ها dispatcherنا باهنا لكن حتى dispatcherنا ولا هاي سنة وأنا ولي يوم أفتيهم باهنا إن شاء الله dispatcher أو قبل كروبا تيون هلنا قال لنا جري لنا أدي هذا دوما سنتهاي بدون يدار ready وقتها داوديال waxaa gunti iyo gunaadkii noo maraya barnaamijkii waxqabadkii galool wareysigii waxqabadkii galool tracking company waxaan rabay inaan kusoo gabagabeeyo su'aasheedii ugu dambeysay oo aan rabo in aan aad la sheergareyso ummadda weliba gaar ahaan dadka qurbi joogta ah waxaad aaday Soomaaliya gaar ahaan waxaa kasii aaday koonfur galbeed iyo meel kale inaad soo martana laga yaabaa sida sawirada aad Facebook soo boosti galeysay su'aashii ugu horeysa aan rabay waxaan rabay inaan ku weydiiyo markaad wadankii aad tagtay gaar ahaan Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed maxaa kula yaabka badnaa waa su'aashii ugu horeysay su'aashii xigtana markaad wadankii tagtay muddo badan ayaad mooganeed koonfur galbeed gaar ahaan Baydhabo maxaa ku farxad geliyay oo dadkii horumar ay ku gaareen gaar ahaan koonfur galbeed roogi shambilooda roogi aan maleeyaa oo maalmo dhiman meel raayis ma sha Allah inuu isbedel badan iyo jara oo ku jara wadanka geekun hogtamni Soomaaliya iyo waqtiga hatuuna saani lama nooc iyo shalata waliba waxa horumar badan jiraan oo dhanka nabadgelyada hooyada iyo ganacsiga iyo dhinac walba loo fiiriyo marka dhaliilo badan isku jiraan oo meel raayis dadka sheegahayaan oo maamulka iyo walaal sheegay laakiin aan aragtiday wala inka muhiimsan bani aadamka ma baahan nabadgelyada iyo horumarka dadka meel raayis inni oo meel raayis muhiim ah marka meelaha ay ka aragayaan waa tahay daawadayaal waxaa halkan inoogu soo idlaaday barnaamijkii la magac baxay waxqabadkii galool tracking company kaas oo aan wareysi kula yeelanay magaalada Omaha Nebraska ee cariga Mareykanka milkiilaha galool tracking company Daahir Macalin Cali oo loo yaqaan Daahir Ganey aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Daahir Macalin Cali Daahir Ganey soo dhaweynta aad soo dhaweysay aniga iyo maamulkayga iyo gudoomiyaha My TV soo dhawaada waa inoo kulanta dambe